السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxa aynu ka hadli doonaa guurkii iyo haasaawihii Soomaalida. Ku soo dhawaada muuqaalkeena guurku waa unugga iyo aasaaska ugu horeeya ee qoyska. bulsho kasta oo meel degan waxa ay leedahay xeer iyo caadooyin guur oo u gaar ah, kuwaas oo ay ka dhaxleen jiilkii iyaga ka horeeyay. haddaba bulshada Soomaaliyeed waa bulsho leh hiddo iyo dhaqan u gaar ah. sidaa darteed waxa aynu ka hadli doonaa guurkii iyo haasaawihii Soomaalida, inagoo oo tilmaami doona waagii hore iyo siyaabaha uu guurku ku imaan jiray, iyo waliba nooca haasaawe ee bulshadii hore. inta badan guurka Soomaalidu waxa uu ku imaan jiray 5 siyaabood, oo mid walba oo 5taas ka mid u qaybsamaya 2 qaybood oo ay isu geyntoodu noqonayso 10 nooc. qaybta koowaad, guurka tooska ah. guurka noocan ah waxa uu u qaybsamaa 2 qaybood oo kala ah dhaadasho iyo gaadasho. dhaadasho waa marka gabadha iyo wiilka iyaga oo yaryar la isugu xudun xidho. guurka noocan ah aad ayuu u adkaa, dhibaatooyin badan ayaana lagala kulmi jiray, taasi oo ay sabab u ahayd marka wiil iyo gabadh aan isgaranayn isna soo xulanin la isugu keeno hal guri. dhaadasho waa xulasho uu sameeyo ninka guurdoonka ah, isaga ayaa raadsan jiray lamaanihiisa. waxa uu tafaha u xidhan jiray sidii uu ku baran lahaa gabadh karti iyo bilic leh. waxaase xusid mudan in hiddaraacu ahaa shayga ugu muhiimsanaa ee uu ku xusho ninka ooridiisa, waayo inanta hooyadeed iyo isirkeeda ayaa lagu cabiri jiray shakhsiyadeeda iyo dhaqankeeda. inanka guurdoonka ah inta uusan u boqolin xulashada gabadha uu nolosha la wadaagayo, waxa uu talooyin iyo duruus wax ku ool ah ka qaadan jiray odayaasha deegaankiisa, maadaama ay arrinkaas uga khibrad badan yihiin iyagu. wiil guurdoon ah ayaa waqtiyada ka mid ah talo weydiiyay nin oday ah si uu ugala taliyo gabadha uu nolosha la wadaagayo astaamaha uu ku eeganayo. ninkii odayga ahaa waxa uu yidhi, oo uu talo ahaan ugu soo jeediyey wiilkii dhalinyarada ahaa, gabadha aad guursanayso waa in ay lahaataa 5tan tilmaamood. waa in ay lahaataa itaalnimeed, aqbal dumar, af muslim, anshax culumo, iyo waa in ay ahaataa arrinkeen waayeel. bal haddee marka ninku uu qayb ka mid ah tilmaamahaas ka helo gabadha ayaa u guursan jiray. sidaasi la mid ah gabadha gaashaantida ah, inanka ay doonayso waxa ay ka eegi jirtay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin raganimadiisa, geesinimadiisa, deeqsinimadiisa, aftahamadiisa iyo hantida reerkooda. balse shayga ugu muhiimsan ee ay gabdhuhu ka eegi jireen waa raganimada. bal aan soo qaadano qiso inoo bayaamin karta waxa aynu ka hadlayno. gabadh baa waqtiyada ka mid ah waxa ay la sheekaysatay 2 nin. mid waliba wax gooni ah ayaa ay ku jeclay. waa midka koowaad ee waxa ay ku jeclaatay raganimadiisa, waxa uu ahaa nin karti badan. kan labaadna waxa ay ku jeclaatay hanti iyo maal. iskama waaline, sidii caadada ahaydba waxa ay la tashatay gabadh kaga khibrad badan arrimahan oo iyada uga horeysay. waxa ay weydiisay weydiintan: nin rag ah iyo nin reer maara leh ayaa ma la raacaa? waxa ay ugu jawaabtay oo tala ahaan u siisay: isagaa rogayee nin rag ah baa la raacaa. nooca labaad ee guurku waxa uu ahaan jiray boob. guurka noocan ah sida magaciisaba ka muuqata waxa uu ku imaan jiray sifo qallafsan oo ka kan, taasoo ah in lagu guursado gabadh si khasab ah ama sifo aanay qoyskoodu raalli ka ahayn. waxaana loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah la tagis iyo dhabargaraac. la tagistu waxa uu ahaa in wiilku intuu gabadha si qarsoodi ah ula heshiiyo uu dabadeedna la tago ama ka haysto reerkoodii. marka uu u geeyo
ama deegaankoodiiba geeyo aad ayaa loo soo dhoweyn jiray inanta dabadeedna waxaa inanta reerkoodii loo hibayn jiray xoolo si looga helo ogolaanshiyo waalidkeed oo ay inanta u bixiyaan. dhabargaraac mararka qaar waxaa dhici jiray in wiilku xoog ku kaxaysto gabadha isaga oo aan nafteeda iyo reerkooda midna ogolaanshiyo ka haysan. asbaabaha ugu waaweyn ee keeni jiray waxaa ka mid ahaa in gabadha laba nin isku haystaan oo mid kastaaba doonayo inuu isagu guursado. arrintani waxa ay keeni jirtay colaado daba dheeraada ayay sababi jirtay. waxaase xusid mudan in guurka noocan ahi uu markiisii horeba Soomaalida dhexdeeda ku yaraa haddana uu dabar go'ayba sida ogaalkayga ah. nooca saddexaad ee guurka waxaa la odhan jiray dani ku baday. guurka noocan ah waa mid ay geeridu keento waxa uuna u qaybsamaa noocyadan. xigsiin waa marka ninka ooridiisu geeriyooto. marka ninka ooridiisu geeriyooto ayaa la siin jiray walaasheed iyadoo ujeedada ugu weyni ay tahay in aysan carruurtu dayacmin oo ay habaryartood xafido. waxa ayna ku khasbanayd in ay aqbasho arrintan dhaqanku jideeyay oo waa tii la yidhi xigsiin xulasho ma leh. dumaashu waxa ay cagsi ku tahay xigsiin oo waa marka uu ninku dhinto ooridiisana waxaa guursan jiray walaalkii. ujeedaduna waxay ahayd sida tii hore oo kale in aan ubadku dayacmin iyo sidoo kale maalku. nooca afraad oo isaguna laba u qaybsamaya waa marka gabadhu ay si badheedho ah guurka iyadu cagaheeda ugu raadsato. waana labada nooc heerin iyo gayaandoon. heerinku waa socdaal guurdoon oo ay samayn jireen dumarku. heerinku waa socdaal guurdoon oo ay sameeyaan gabdhaha weynaada ee guurka ka daaha. dabcan hadda ma sameeyaan baan filayaa oo deegaanada Soomaalida noocaasina waa ka dabar go'ay. waxa ay socdaalkooda ku mari jireen deegaanada ka durugsan deegaankooda. reerkii ay soo martiyaanba waxa uu fahmi jiray in ay gabadhu guurdoon tahay. sidaas darteed waa la soo dhoweyn jiray lagamana nabsi geli jirin oo rag aan lahayn oori ayaa guursan jiray. gayaandoonku waa marka ay gabadhu soo dhex fadhiisato guriga ninka ay doonayso iyada oo aan ka cabsanaynin xaasaska ninka ay rabto. si badheedh ahna waxa ay carabka ugu adkayn jirtay arrinka iyada oo sheegaysa in ay odayga xaafadda u fadhido dhinacna aanay uga dhaqaaqaynin ilaa uu ka mehersanayo. nooca shanaad ee guurka oo isaguna laba qaybood u qaybsami doonaa waxaa weeye bogsiin. bogsiintu waa guur inta badan hadafkiisu ahaa in lagu qaboojiyo colaad dhex taalla laba beelood ama laba col. waxa uu qaybsami jiray laba qaybood bogsiin iyo godob reeb. bogsiintu waa guur inta badan hadafkiisu ahaa in lagu qaboojiyo colaad dhex taalla laba beelood ama lagu xoojiyo nabadda beelo isku deegaan. godob reebtuna waa nooc ka mid ah bogsiinta. waana marka ay laba beelood isweydaarsadaan gabdho si loo dhayo boogaha iyo dhaawacyada ay isu geysteen nabadna looga dhaliyo beelaha hore dirirtu u dhex martay. laba col oo aan isbixin jirin baa hubka lagaga dhigaa. waa tii hore loo yidhi meel xinjiri taallo xabnaha yaal. marka ay dhacdo in gabadh la faraxumeeyo ma jirin xabsiyo lagu ciqaabo dambiilaha falkaas geystay. dantu waa dabar adag oo cadowgaaga ayay lugaha kaaga xidhaa. waxaana dhici jiray in dambiilihii falkaas geystay lagu daro gabadhii uu faraxumeeyey iyagoo odhan jiray quruxdeedii waxa u dhintaye qadaadkay kuu saaran tahay. waa sababtaas midda keentay in dambiilihii ku gaboodfalay gabadha loo guuriyo oo loo gurigeeyo ayna noqoto ooridiisa iyo ubadkiisa hooyadood. haasaawihii Soomaalida waxaa saldhig u ahaa ciyaaraha
oo ahaa aaladda fududayn jirtay haasaawaha waxa ayna ahaayeen munaasabadda ugu weyn ee ay dhalinyaradu ku kulmi karaan iskuna baran karaan ciyaaraha dhexdooda lama tiraabi jirin tix baa la isku sarbeebi jiray intaa marka la isdhaafsado habeenkuna gabal rito ciyaartuna dhammaato ayaa gees la isula bixi jiray hadba waa inta hadalku isu qabtee sheekadana guntaa loo dhigi jiray dhaqan xumida iyo gaabsiyaridu bulshadeena waa ku ugubee milgihii iyo dhaqankii soo jireenka ahaa waxa uu ahaa in arrintu guur ku ekaato goobta reerku yaallana la isu raaciyo daawadayaal muuqaalkeena maanta intaas